Magacaygu waa Barre, mana u maleeyo inaan ahay qof qurux badan. Mararka qaar xataa waxaan u maleeyaa in muuqaalkaygu aad uga hooseeyo heerka dhexdhexaadka ah. Mar kasta oo aan gabar la kulan isidhaa, wadnahaygu aad ayuu u garaacaa. Waxaanan ka baqaa inay i diido xataa intaanan la hadalba oo ay iga baxsato, iyadoo aan taa u sababaynayo muuqaalkayga oo aan loo dulqaadan karin. Waxaa laga yaabaa haddii aan sidan ka qurux badnaan lahaa inay xiisayn lahaayeen inay ila hadlaan. Laakiin haddana dhinaca kale marar baan wax ku yara dabaqaa sababtoo ah marmarka qaar markaan muraayadda isku eego muraayadda kuma dhex arko qof fool xun. Mararka qaar xataa waxaan u maleeyaa inaan aad u qurux badanahay, balse taasi badanaa ma dhacdo. Waan ogahay inay tani tahay khiyaali oo aan istusay. Mararka aan u maleeyo inaan ahay qof la aqbali karaana waa khiyaali aan aniguna istusay. Miyaad ku qanacsan tahay muuqaalkaaga? Markii aan darsay dad badan, waxa ii soo baxday in dadka badankoodu ay nafahooda ku iibiyaan qiimo aad u jaban. Waxaa jira dad badan oo isu maleeya inay fool xun yihiin, isla markaana boqolkiiba boqol ku qanacsan inay taasi xaqiiq tahay. Inkastoo laga yaababa in muuqaalkoodu uu ka sarreeyo muuqaalka dhexdhexaadka ah, mararka qaarna xataa ay aad u qurux badan yihiin. Ha yaabin sababtoo ah adiga laftarkaaguba waxaa laga yaabaa inaad sidoo kale ka cabanayso dhibaato tan oo kale ah. Haddii sheekadii aan ka sheekaynaynay muuqaalkan bilowgiisu ay ka turjumaysay sida aad adigu ka dareento muuqaalkaaga, inta ugu badan waxa aad u suurtagal ah inaad qiimo ridayso naftaada. Muuqaalka xun ee uu qofku naftiisa ka haystaa waa xaalad maskaxeed oo uu qofku sawir ka haysta naftiisa, sawirkaasi oo aad uga liita muuqaalkiisa dhabta ah. Dadka qaar ayaa waxay naftooda ka qaataan humaag been ah oo buunbuuniya mid ka mid ah muuqaalada wejigooda oo aanay naftooda ku jeclayn. Tusaale ahaan, waxaa jira dad u maleeya in sankoodu uu aad uga gaaban yahay sida uu dhab ahaan yahay. Sidoo kale waxaa jira dad is yidhaa aad baad u buuran tihiin inkastoyna buurnaynba. Haddii ay tan sababtay cambaaraynta ay dadka kala kulmaan, ama diidma ay la kulmeen, amaba fikrad been ah oo ay aamineen, natiijadu waxay tahay in dadkaasi ay sawir aan dhab ahayn naftooda ka qaateen. Sawiradan beenta ah ee ay naftooda ka qaateen waxay ku sababaan inaanay dadka agtooda nafis ku dareemin. Sidoo kalena waxay ka dhigaan dad aad ugu nugul faallada ay dadka kale ka dhibtaan ay ku saabsan muuqaalkooda, waxaanay taasi burburisaa kalsoonida naftooda. Ka waran haddii aan fool xumahayba? Yaa kuu sheegay inaad fool xun tahay? Ma ogtahay in qof kastaaba quruxda sida uu u yaqaano uu kaga duwan yahay qofka kale? Haddii uu qof kuu sheego inaad fool xun tahay, haddana waxaa jira qof kale oo u maleeya inaad qurux badan tahay. Quruxdu hadba waxay ku xidhan tahay qofka wax eegaya sida uu u arko. Ma jiro istaandar caalami ah oo la isku raacay oo qeexa sida ay quruxdu tahay. Ee isku kalsoonow, waxaanad noqon doontaa qof aad soo jiidasho leh. Xataa haddii aanad qurux badnayn, haddana waxaa jirta suurtagalnimo aad u weyn oo ah inaad ka fiican tahay sidaad adigu u malaynayso. Taasna waxaa caddayn u ah aragtida mararka qaar kuu sheegta inaad qurux badan tahay. Maxaan sameeyaa haddii aan aaminsanahay inaanan qurux badnayn? Mid ka mid ah waxyaabaha aanay dadka badankoodu ogeyn wuxuu yahay in soo jiidashadu ay ka kooban tahay qodobo isku tegtegay oo aanay ku koobnayn oo keliya muuqaalka wejiga. Habka aad u hadasho, habka aad u socoto, sida aad u labisato, qaabka jidhkaaga, kalsoonida naftaada, dareenka aad wejigaaga ka muujiso, dhammaan waxyaabahaasi waxay doorar kala duwan ka ciyaaraan heerka soo jiidashadaada. Hadalkoo kooban, inaad qurux badnaato macnaheedu maaha inaad u egaato Brad Pitt ama Angelina Jolie, balse macnaheedu waa inaad waxyaabaha kala duwan ee ka qayb qaadanaya muuqaalkaaga iyo quruxdaada guud aad ka shaqayso sidii aad u horumari lahayd, sida labiskaaga, nadaafadaada, kalsoonida naftaada, qaabka aad u hadasho, sida aad u socoto, iyo qaab jidheedkaaga. Haggii aad ka eedayn lahayd abuurkaaga ama hiddahaaga, beddel waxyaabaha aad beddeli karayso. Haddii uu sankaagu yar yahay, waa inaanad ka xumaan sababtoo ah heerka uu ka ciyaaraya soo jiidashadaadu waxaa laga yaabaa inaanu saa u sii weynaan. Balse haddii aad calool weyn leedahay, waa inaanad qof kale ku eedayn oo aad naftaada ku eedaysaa, ilaan wax waad ka qaban kartaa. Intaa ayaan ku soo